runtii maanta waa fursad aad iyo aad u wanaagsan aan nafteena iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka jecel dadka Soomaaliyeed baan ugu hambalyeynayno guusha la gaaray. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo anoo ku hadlayo magaca midowga murashaxiinta ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawlad goboleedyada dadaalkii ballaaray ay ka geysteen in la soo gabagabeeyo wada hadalka ku aadan doorashooyinka. sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha inuu ra'iisul wasaaraha u ogolaaday inuu shaqadan hogaamiyo asaguna waa ku mahadsan yahay. intaas markii aan ka gudbo geedi socodka dawlad dhismadu horteenana waa jiray haddana waa socdaa horena waa u jiri doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. marka waxaa wax weyn ah si kastoo loo kala aragti duwanaa iyo khilaafku meel kasta oo uu gaaray maanta halkan inaan ku heshiinay ama madaxdii wada hadalka ku jirta ay heshiis ka gaareen marka anoo ku hadlayo magaca madowga murashaxiinta waa soo dhaweynaynaa. sida walaalkay madaxweyne xasan oo sheegay annaga mar walba talo iyo soo dhaweyn ayuu ahaa doorkeenu. ujeeddada ugu weynna waxay ahayd dalkan inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaal ah oo natiijadeeda la wada ixtiraamo. waa ognahay Soomaaliya waqti adag ay soo martay intii murankaanu socday waxaa jira cabsi fara badan walwal fara badan oo dadka mas'uuliyiinta iyo shacabka iyo dadka jecel Soomaalidaba ay qabeen laakiin falillaahi alxamdu waxaan aaminsanahay maanta inuu soo gabagaboobay. taas waa taariikh aad iyo aad u wanaagsan muujinaysa dadka Soomaaliyeed markay wada fadhiistaan inay mashaakilkooda xalli karaan. waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka muhiimka oo ah inaan dhidibada u aasno nidaam dimuqraadi ah xur ah xalaal ah dadka Soomaaliyeed ay ku wada jiri karaan dawladnimadu ay ku hore ugu socon karto oo ah waxa lagu heshiiyey inaan la garab marin. marka waxaan rajaynayaa wixii la soo maray dhammaantooda inay noo noqdaan maxaan ku idhahdaa waxaan wax ku qaadanno oo cid danbe oo mas'uula ama cid danbe oo caadi aysan garab marin heshiiska la gaaray. dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxaan rajaynaynaa inay fuliyaan wixii ay ku heshiiyeen una fuliyaan sida ugu wanaagsan oo keeni karta kalsooni dadka Soomaaliyeed iyo dadka taageera Soomaalida intaba. intaas markaan ka gudbo dhammaanteen waa mas'uuliyadna saaran qarankaana inuu u socdo horena uguma soco karo haddii doorashadiisa ay mugdi galo. marka waxa ugu muhiimsan inay noqoto doorashadii doorasho xor oo xalaala daah furan dadka Soomaaliyeedna ay ku qanci karaan inay noqoto. intaas markii aan ka gudbo heshiiska la gaaray mararka qaar waa nala xantaa waxaa la yidhahaa heshiis gaariddu waa idin fududahay laakiin fulintu waa idinku adag tahay. waxaan rajaynayaa inaan ka soo gudubno marxaladdaas jiijiib fara badan kadib maanta aan u diyaarsannahay inaan fulinno hareeraha ka wada istaagno doorashada inay dhacdo. deegaanada Soomaalida oo kala duwan oo doorashooyinku ay ka dhacayso waxaan rabnaa inaan ka codsanno inay soo doortaan dad matali kara dawladnimada macno u samaynaya qaran dhisidda fahamsan inay soo xulaan insha allahu tabaaraka wa tacaala. hawsha noo taalla aaday u weyn tahay laakiin munaasabaddan waxaan u malaynayaa inay munaasab tahay in la sheego horena looga dhawaajiyey waxa la isku hayay siyaasaday ahaayeen colaad gaar ahoo shakhsiya ma jirin colaad qabiil ma jirin colaad degaan ma jirin aragti siyaasadeeda la isku hayay maadaama la soo dhoweeyey hadda in la iswada cafiyo caloosha la wada furo doorashada iyadoo dhinacyada aan la fiirinayn la wada galo insha allahu tabaaraka wa tacaala. anoo magaca murashaxiinta ku hadlaaya marka annaga dhinaceenna waxaan soo jeedinaynaa cafi iyo musaamax wixii aan sheegaynay waa mahadsantiin aragti siyaasadeed ay ahaayeen wax kale ma ahayn. intaas markaan ka gudbo halka qodoba ugu dambeeya shacabka Soomaaliyeed inaan ka raali geliyo isjiidka iyo jahawareerkii soo maray meesha hadduu legdan ka jiro siyaasadu ka jirto sidii wax la filaayay ma noqon karaan laakiin waxaa ilaahay mahadiisa
in la heshiiyey waa jecleen heshiiska inuu soo horumaro laakiin haddana waxaan leenahay in la heshiiyaa muhiim ah marka waa idinka raali gelinaa adinkana waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu